Ma doonaysaa inaad cusboonaysiiso noloshaada oo dhan aadna bilowdo nolol qurux badan? Ma doonaysaa inaad ka dhabayso isbeddelkii aad weligaa raadin jirtay? Ma doonaysaa inaad noqoto qof shakhsiyad wanaagsan leh, dadkuna u noqdo tusaale wanaagsan? Ma doonaysaa inaad samayso isbeddelka madambays ah aadna qurxiso noloshaada inta ka dhiman? Dabcan, jawaabtaadu waa haa. Soo sidaas maahan? Haddaba inakeen aynu wada bilownee nolol cusub. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مقعيقو وقاسم محمد داعد waxaan ahay saaxiibkaaga kula jecel horumarka iyo guusha. Ku soo dhawow barnaamijka hormari naftaada. Noloshu waxay ku siinaysaa fursado badan oo aad wax ku qabsan karto kuna horumarin karto naftaada. Balse adiga ayaa ah qofka doorbidaya ka gaaridda go'aanka ka faa'iideysiga fursadahaasi iyo inaad iska indhatirto fursadahaas. Haddaba ma doonaysaa inaad bilowdo safar cusub oo aad ku cusboonaysiinayso noloshaada oo dhan kuna horumarinayso weliba naftaada? Tani waa fursaddaadii. Ogow, horumar walba waxa uu ka bilowdaa aaminaadda naftaada iyo go'aan qaadasho wada socda. Ogow, wax isbedelaya ma jiraan ilaa adigu aad bedesho wax walba. Wax qurux badnaanaya ma jiraan ilaa adigu aad wax walba ka qurxiso. Naftaadu qiimo ma yeelanayso ilaa adigu aad ka qiimayso naftaada. Jaceylna ma dareemaysid qiimihiisa ilaa adigu aad ka jeclaato naftaada. Haddii aad doonayso isbedel inuu ku yimaado fikirkaaga, dhaqankaaga, waxbarashadaada iyo kalsoonida naftaada, waa inaad adigu bedeshaa wax walba si aad u hesho waxa aad doonayso. Kani waa sanadkaagii. Waa fursaddii aad ku bedeli laheed noloshaada oo dhan. Waa fursaddii aad banaanka ugu soo saari laheed kartidaada qofnimo. Waa fursaddaadii aad ku joojin lahayd caado walba oo dib u dhigeysa horusocodka noloshaada. Waa fursaddaadii aad uga xoroobi lahayd Caajiska, Wahsiga, Kubaraarug sanaan la'aanta ujeedada nolosha. Waa fursaddaadii aad ku baraarugi lahayd inaad tahay qof u abuuran inuu ka guuleysto caqabad walba. Waa fursaddaadii aad ku noqon lahayd tusaale wanaagsan oo ku dhex jira bulshada dhexdeeda. Ka kac fadhiga. Kani waa sanadkaaga. Ka kac fadhiga. Tani waa fursaddaadii ugu weyneed abid oo aad ku abuuran lahayd nolol farxad leh, kalsooni leh, jacayl leh. Fadhiga ka kac. Kani waa sanadkaagii. Aad horumarin lahayd naftaada, aad jeclaan lahayd naftaada, aad xoreyn lahayd naftaada, kana xoreyn lahayd caajiska iyo waxa qabsi la'aanta. Waa sanadkaagii. Waa fursaddaadii aad dib ugu sixi lahayd waxyaabihii kaa qaldoomay sanadadii la soo dhaafay. Waa fursaddaadii aad ku abuuran lahayd xirfado kala duwan si aad ula jaanqaado dunida sii horumaraysa. Waa fursaddaadii aad ku qaadi lahayd mas'uuliyadda noloshaada oo dhan. Waa fursaddaadii aad ku tusi lahayd dadka kugu dhaha mar walba waxba ma noqon kartid. Awooddaada qofnimo iyo natiijooyinka guulahaagana aad u soo bandhigi lahayd. Waa fursaddaadii aad ku joojin lahayd wax walba oo caqabad ku ah horumarinta naftaada iyo noloshaadaba. Si aad u cusboonaysiiso naftaada, uma baahnid lacag iyo saaxiibo badan. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad aaminto naftaada, inaad aqoonsato inaad leedahay awoodda aad ku bedeli karto wax walba oo dib u dhigaya naftaada. Inaad aqoonsato awoodahaaga gaarka ah ee aan xadka lahayn uu Alla weyne kugu abuuray adiga. Inaad leedahay karti qofnimo oo aad kor ugu qaadi karto kuna horumarin karto naftaada oo dhan, kana guulgaari karto hadaf walba oo aad ka leedahay nolosha. Taas ayaa ah waxa sida dhabta ah aad ugu baahan tahay maanta. Maadaama aad doonayso inaad suurto geliso rumaynta riyooyinkaaga. Ogow, horumar walba waxa uu ka bilowdaa aaminaadda naftaada iyo go'aan qaadasho wada socda. Ogow, wax isbedelaya ma jiraan ilaa adigu aad bedesho wax walba. Wax qurux badnaanaya ma jiraan ilaa adigu aad wax walba ka qurxiso. Naftaadu qiimo ma yeelanayso ilaa adigu aad ka qiimayso naftaada. Jaceylna ma dareemaysid qiimihiisa ilaa adigu aad ka jeclaato naftaada. Haddii aad doonayso isbedel inuu ku yimaado fikirkaaga, dhaqankaaga,
waxbarashadaada iyo kalsoonida naftaada waa inaad adigu beddeshaa wax walba si aad u hesho waxa aad doonayso. Haddaba waxaa laga yaabaa inaad isweydiinayso su'aashan: sidee ayaan ku cusboonaysiin karaa kuna hormarin karaa noloshayda oo dhan sanadkaana aan uga dhigan karaa sanadkayga? Hawlwalin waxaan ku hayaa 7 tallaabo oo aan ku damaanad qaadayo haddii aad joogtayso inaad dareemi doonto sida ugu dhaqsiyaha badan isbeddel wata farxad, deganaan, iimaan, kalsooni iyo jacayl wada socda. Tallaabada koowaad: wanaaji xiriirka kala dhaxeeya Alle. Wanaaji xiriirka kala dhaxeeya Alle. Xiriirka kala dhaxeeya Rabbigaaga ayaa aas-aas u ah qofka iyo waxa aad rabto inaad noqoto. Isbeddelka aad doonayso inaad ku guulaysato waxa aas-aas u ah inaad wanaajiso xiriirka kala dhaxeeya Allahaaga. Sababtu waxay tahay wax walba oo wanaagsan waxa laga dhaxlaa meelaha wanaagsan. Meelaha wanaagsan waa cibaadada. Ku ilaali cibaadadaada si joogto ah u ilaali, kuna ilaali salaadaha waqtiyadooda. Yeelo caado joogto ah oo aad si maalinle ah ku akhrinayso Quraanka Kariimka, waliba adigoo akhrinaya intaad awoodo inta maalintaasi aad ugu tala gashay. Samayso caado noocaas ah, waxaad dareemaysaa durbadiiba farxad, waxaad dareemaysaa jacayl, waxaad dareemaysaa iimaan, waxaad dareemaysaa inaad tahay qof qiimo leh, waxaad dareemaysaa inaad leedahay karti qofnimo, waxaad dareemaysaa oo sare u qaadaya inaad leedahay karti aad ku aamini karto naftaada, Allahaaga aad aaminsan tahay, aadan waxba ka baqayn. Intaasoo dhan waxaa kuu suurtagelinaya inaad wanaajiso xiriirka kala dhaxeeya Allahaaga. Soo ma doonaysa inaad noqoto qofka aad rabto? Soo ma doonaysa inaad riyooyinkaaga dhan rumayso? Kaliya hawlwalin qaado tallaabadan: wanaaji xiriirka kala dhaxeeya Allahaaga. Tani ayaa ah aas-aaska tallaabada koowaad ku damaanad qaadaysa inaad beddesho noloshaada oo dhan, noqotona waxaad jeceshahay ama waxa aad doonayso oo aad mar walba ku haminayso. Qaado tallaabadani: wanaaji xiriirka kala dhaxeeya Allah. Wanaaji wax la wanaajiyo waxa ugu fiican waa xiriirka Alle. Adkee xiriirka kala dhaxeeya Allahaaga si ay kugu fududaadaan adduunyadaada iyo aakhiradaadaba. Tallaabada labaad: dejiso hadafyo u gaar ah sanadkan. Samayso hadafyo kala duwan oo aad ku xaqiijinayso sanadkan gudihiisa, sida inaad barato waxyaabaha kala duwan sida kombiyuutarka, waxyaabaha la xiriira asaasiga ah sida Photoshopka inaad barato, graphic design noocyadiisa kala duwan inaad barato, luqadaha inaad barato sida Englishka ama Carabiga inaad barato, iyo wax walba aad is leedahay waad qaban kartaa sanadkan gudihiisa inaad dejiso. Sababtu waxay tahay qofka waa inuu og yahay meesha uu u socdo. waa inaad og tahay maxaad doonaysaa sanadka inaad soo kordhisato, maxaad doonaysaa xirfad ah inaad barato sanadkan gudihiisa. inaad dejiso aad bay u wanaagsan tahay. Soo qaado qalin iyo buug, kuna qoro wax walba oo aad qaban karto oo aad is leedahay waad awoodaa sanadkan gudihiisa ku qor. kadibna waxaad samaysaa si joogto ah u dabagal. Tallaabada saddexaad: maare waqtigaaga. inay kuu qabsoomaan howlo badan waxa aas-aas u ah inaad kala qorsheysato waqtigaaga, sida inaad samaysato xilli kuu go'an oo aad seexato habeen walba, iyo xilli kuu go'an oo aad ka soo toosto hurdada maalin walba, sida 4 habeenimo ama 4:15, maadaama xilligaasi ay tahay xilliga ugu wanaagsan oo ay soo toosaan dadka hanka sare leh ee dunidan ka gaaray magac iyo masab sare. sidoo kale adigana waad ka soo toosi kartaa hurdada, waa haddii adiga aad u diyaar garowdo inaad ka soo toosto hurdada 4 habeenimo. sababtuna waxay tahay waa xilliga ugu wanaagsan oo la cibaadeysto, maadaama adigu aad ka kooban tahay jir iyo ruux. ruuxdaadu waxay u baahan tahay cibaado si ay uga hesho kalsooni iyo iimaan dheeraad ah ayna ku wajahdo hadafyada aad ka leedahay noloshaada oo dhan. sidaa darteed maalintaada ku bilow si qurux badan oo ah inaad soo toosto xilli hore si aad uga faa'iideysato waqtigaaga. Tallaabada afaraad: samayso caado wax akhris. dib u fiiri qof walba oo dunida ku yeeshay magac iyo maqaam sare waxa uu saaxiib dhow la ahaa wax akhriska. sababtoo ah wax akhriska badan ayaa wuxuu ka dhigaa qof leh maskax furan oo kaydiya macluumaad badan oo la xiriira nolosha. Tallaabada shanaad: marnaba ha joojin waxbarashada. noloshu marnaba ma joojinayso inay wax ku barto adiga. sidaa darteed adiguna ha joojin waxbarashadaada inta ka dhiman cimrigaaga, oo ka dhigo waxbarashada qayb ka mid ah noloshaada oo dhan. Tallaabada shanaad: samayso jadwal maalinle ah.
waa muhiim inaad ka faa'iideysato waqtigaaga uguna faa'iideysato sida ugu saxsan waxaana kuu suurtageli kara inaad ka faa'iideysato waqtigaaga inaad samaysato jadwal maalinle ah oo aad ku qorato maalin walba qorshaha aad qabanayso maalintaas si aad u noqoto qof nidaamsan oo ku xisaabtama waqtigiisa talaabada 7 dhiirigelin u samee naftaada maalin walba dhiirigelintu waa waxa kiciya qiirada qofka kuna qasba inuu garto waxa ka maqan oo sida dhabta u doonayo sida darteed waxa laga maarmaan ah inaad dhageysato aqrisato ama daawato wax walba oo kugu dhiirigelinaya gaaridda hadafkaaga iyo horumarinta shakhsiyadaada ugu dambeyn sanadkan waa sanadkaagii waxaan ku rajeynayaa inaad noqoto xidig ama xidigad ku guuleystay horumarinta naftiisa ama nafteeda hana ilaabin inaad tahay qof kartidaas leh oo bedeli kara horumarin kara go'aan leh u dhabar adeegi kara wax walba oo naftiisa uu ku horumarin karo wax walba uu naftiisa ku horumarin karo saaxiibkaaga guusha iyo horumarka wuxuu ku leeyahay inta aynu kaga kulmi doono muuqaalka soo socda aad baad u mahadsan tahay daawashada muuqaalkan